waxaan u imid inaan doorashada ka qayb qaato maadaama doorasho nin iyo cod ah ee dadka ay u siman yihiin aad ugu faraxsanahay waa doorasho hadda ka hor aan dhicin oo tixgelin aan ku haysan Puntland laakiin hadda aan ka helay aad ugu faraxsanahay waxay nooga dhigan tahay inaan bulshada Puntland dadka u dhashay oo muwaadinka aan ka mid nahay oo xaq doorashada qaadan doono dad badan oo siyaasadda ka qayb qaata diyaar u ah inaan wax la qaybsano Puntland diyaaran u nahay ما هذا دلالة بدلن ودشان هيادر وكبحنا قوتينهم. waxaan leeyahay ama oo hada wax doorata ama nolosha sidii hore ay dhaantaa oo wax isbedel ay imaadaan qof wax qaba karo oo mas'uuliyadda qaadi karo dadka baahidooda iyo beesha ku noolyihiin ka warqabo baan u baahanaa saasaan doorashada u galeynaa waxaan ka soo cararnay dhibaato iyo burbur iyo qarax iyo baqti aan ka soo cararnay nabadgelyada inta uu imaanaa u soo raadsan dadkaan aan rabaa inaan wax la qaybsado dadku waa dadkaygi wallahi rajaadi aad u fiican ay muuqato saan hadda ka dareemayo dadkan ay is wada haystaan oo ilaa shalay ilaa maanta loo taagan yahay marka waxaan u maleynayaa sidaan jecelnahay ilaahay noo kasee in oo rajada ay tii shalay ee tan ay ka fiicnaan doonto farxadaan dareemayaa farxad aad iyo aad u weynaan dareemaa oo ilaa xal reerku waa laga faraxsanaa adiga is soo qoray oo la soo sawiray waa faraxsantaa maxaa ku faraxsantahay wuxuu yiri warqad baa la soo siiyay waxa la leeyahay yiri warqada idikaar baa lagu suubinayo meel walba oo ku tartami kara xil hadii la galano ku tartami kara waan la soo wacayaa saas buu leeyahay